geedkan dadkan qashinkan waxaan maxaa way dhahayaan anagana waa ila fiican tahay waxaan ka dhigaa dambiilahan quruxda badan oo macfadooda aan iska arkay aan deey karin aan ka soo saaraa magay Shariif Ali Xasan ana buurha kamaan ka imaaday beeraha iska fali jirnay meeshii hoogo abaari iyo waxa dhashay hoogo olaada noqotay meeshii markii waa ka soo qahanay xamara imaanay sidii ruuxan ku noolnahay hadda wixii Ilaahay alaf ka dhigay hooshayna waxaana iska bartay islaan eedadaan ka bartay waxaan si ula rafahay waa bartay ma sha Allah afartoo hab saddexdoo habaan qaadanaa suuqan geena waa soo gadanaa ilmihii dabkan ugu shidanaa maanta bis ma ka gadaysaa saddexda waxaan qof weyn tahay waxaan maxaa guri ma noqonayaan adi waxaas waa dhihi jireen adi أنا توكسي واحد وايد دانتان يعني حوجي وحنا واسك سميستا وكسا waxaa sidoo kale aaminsanahay in deegaanka dhibaatada ay ku hayso aan ku qaadayo way adig yihiin qoraxda wax ma ka tarto biyaha roob hadoo ku doo waa sideedii hadaa wasaqood hata waa iska dhaq kartaa ya waxa ay ka dhib ay keenayaan male ma sha Allah waa adig أنا waxaan rajeynaa hadda ina la igu guwaabiyo waxaan oo la ii badsho oo la igu dhiirigeliyo oo la ii garab gal Allah garab gal kara bil aadan garab ma gal kara aan rabaa oo la ii dhiirigeliyo hay dumarka inay qaban karaan wax kasta oo ay raga qabtaan magacayga maxamed Cumar waxaan ahay arday bartay cilmiga deegaanka badda aniga noloshayda waaye dhaqo waan dhahaa baaskilina macna si kordhinaya ilmaha farxadooda waaye baashaarka ilmaha waa jamcadii oo kale This is me and this is my Somalia. magacaygu waa Cabdiweli Maxamed Barre waxaan ahay camera operator sidoo kale waxaan ahay muuqaal duube waxaan ka mid ahay Somali Storytellers markuu ma ku saamaxaysa marka yar tahay inaad shaleemo tagto aad filin kuraasta hore intaad ku fariisato aad sida arabtay aad u daawatid marka waxa dhici jirtay in aan sida ay dadku u yaqaanaan meelaha shaleemooyinka qaar waa tarniig marka waxa leedahay dalooladaas ishii ka dhidhiiban jirnay ama buuqbuuqa halkaas filmanka ka dhamaysan jiray marka waxaan ku aamin jiray maalmaha kamid ah waxaan fahmay filinkan ay dadkan daawanay inay tahay sheeko ama sheeko yani laga badbadinayo inay sheeko yani qof actor inta laga dhigo inay sheeko tahay marka waxa igu dhacday marka aan weynaatid waxaan noqon doontaa ninka waxaan soo saari doona sheekooyin kuwan ka qurux badan soo saari doonta waa marka arafaad maro baan niyadeeda ku dhisan jiray hadda aniga waxa la shaqeeyaa hay'ado humanitarian marka aad cameraman tahay run ahaantii waxaad la kulmaysaa dadyo kala duwan marka aad wareysiyada qaadaysid oo kale dadkaas aad la kulmaysid oo aad wareysiyada ka qaadaysid ama deegaanada aad tagaysid waxay kugu reebayaan erayo ama saameyn aan noloshaada ka hareerin waxaa jira sheekooyin badan aan sameeyay anigoo markaas wax aqoon waxna waa wax aad jeceshahay inaad noqotid laakiin anoo aana baran inta aan Somali Storytellers ku soo biirin waxaan sameeyay sheekooyin barnaamij waxaa jiray maayo madaal yiraahdo oo lagu horumarinayay afka ayu ama afka lahjada mayga min mudaawa socday engagement badan baa dad badan baan ku bartay waxaan ku bartay dadyo kala duwan awaalmarina la igu siiyay marka waxaan rabnaa inaan wacyiga sheeko tabinta inaan kor u soo qaadno aan bulshadeena ka gudbino sheeko u qalanta deegaanka dadka Soomaaliyeed iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed hadafkeenu waa intaas
Let's make a trip to Afgoye and enjoy music in the green lush farms. والله إلا خلاص صعبوها وين لك أصحابك وحقادة دايلين وكمان تغيو نحريس تأبيو تفكالك عايدك ليلي وكيجالا نوغيني ونودو تغيو نحريس تأبيو تفكالك عايدك ليلي Gala no de Onna badda dena Awilai ilai Niyata bai adawaha Markabi luglayso Onna badda dena Awilai ilai يتبي عداوها مركزين بليس In our next segment, we will visit the endangered mangroves of the Jazeera Lagoon, where we will sit down with marine biologist and professor Abdulqadir Siad. Stay tuned. As usual, see you next time. Thank you for the love and support. Peace, love, and blessings.